waa mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu cajiibsanaa ee xaramka laga soo wariyey bisha Ramadaan. ninkan odayga ah haatan waxa uu ku sugan yahay xaramka, awlaad ma leh, waalid iyo qaraabo midna uma noola. xaaskiisii oo ahayd qofka kaliya ee uu weeshado iyana waa ay ka dhimatay. guri cariish ah oo uu ka deganaa dalkii uu ka yimid ayuu iska iibiyey si uu xaramka u yimaado. ma haysan waxa uu ku soo noqdo marka uu waajibka guto. sidoo kale meel uu ku noolaado xitaa ma garanaynin, maadaama uu iska iibiyey gurigii uu deganaa si uu soo cumraysto. waxay ahayd sheeko isaga uun ku kooban, balse isaga oo iska cibaadaysanaya oo cumradiisa ku guda jira, waxaa meel sare ka arkay wariyahan oo isaguna cumrada soo aaday bisha Ramadaan. markii uu yimid waxa uu weydiiyey, adeer sidee ku timid halkan, yaase qarashka tirada badan kaa bixiyey? ninkii odayga ahaa waxa uu yidhi, waxaan iska iibiyey guri cariish ah oo aan ku noolaa si aan sanadkani u soo cumraysto. ninkan qisadiisa ila dhageysta. wuxuu weydiiyey, xaramka sidee aad ku imaaday? buu ku yidhi, lacagta xagee ka keentay? wuxuu ku yidhi, guri ani aan degnaa ayaa iska iibiyey. gurigaasna wuxuu ahaa sandaqa ayuu ahaa. wuxuu iska iibiyey cariishkaasi ama sandaqadaas ayuu iska iibiyey, maxaa dhulkii ayuu iska iibiyey. marka la weydiiyey maxaa sidaas u samaysay, wuxuu yidhi, inaan rabbigayga baryo ayuu yidhi. allahu akbar. وعجلت إليك ربي لترضى. هذا هو الإيمان. الله أكبر. يصل إلى هذا المكان. الحمد لله على كل حال. qisada ninkan oo dhacday toddobaad ka hor ayaa aad ugu baahday baraha bulshada. waxaa qoray warbaahinada carabta. maalin kadib markii laga duway muuqaalka, waxaa la soo xiriiray maalqabeeno iyo dad alle lacag siiyey. waxaa loo sheegay in dalkiisii looga dhisayo guri aad u weyn oo sar ah, halka markii hore uu iska iibiyey guri cariish ah. waxaa laga bixiyey lacagtii uu ku yimid xaramka iyo tii uu ku noqon lahaa. sidoo kale inta uu ku sugan yahay xaramka waxaa la dejiyey guri uu ku sii nagaado, halka hoteel uu lacag ku bixin jiray. dadkii deegaanka u ahaa ayaa ku diriray, aniga ha ila joogo iyo aniga ayuu ii martinayaa. sheekadiisa ayaa gaartay guri kasta iyo meel kasta, waxaana aad u soo dhaweeyey dadkii ay cumrada ku wada jireen. waxa uu noqday shakhsi aad looga jeclaado guud ahaan magaalada Maka. ninkan waa ninkii iska iibiyey meeshu isaga degnaa. waa ninkii iska iibiyey sandaqadiisi weeyaan, si oo rabbigiisi u raaligeliyo, si oo xaramka u imaado oo cumraysto. allahu akbar. shaa allah, ilaahay wuxuu doonay in ninkan la duubo, kadibna maqtacaasi oo aad u faafo ilaa xataa aljaziira ayuu gaaray. subxaan allah, ilaahay wuxuu u sakhiray ahl alkhayr. asaga wuxuu iska iibiyey sandaquu iska iibiyey, ilaahay bedel khayr ah ayuu siiyey. dad ayaa kafaalad qaadeen in ay u dhisaan guri. isaga wuxuu iska iibiyey sandaquu iska iibiyey, laakiin wuxuu helay guri oo sar ah ayuu helay. subxaan allah. lacagtii oo ku iibiyey maxaa la yidhaahdaa sandaqadiisii, alxamdu lilah. u fiirso, dadkii waxay kafaalo qaadeen, isaga cumruu u imaadee waxay kafaalo qaadeen in ay ka bixiyaan cumradiisii iyo xajkiisii. allahu akbar. dadka hadda sacuudiya ee joogaan ahlul khayrka waxay sameeyeen, xabadkooda u garaaceen, abshir bay dheheen, annagaa guri ku siinayno, guryaheena ayaa ku siinaynaa. allahu akbar. yaa jamacat alkhayr, التجارة مع الله وقناعسي أمر نبقى صار لها ويا. يا ربي في توبة لا. سبحان الله العظيم. باع بيته.